halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com. duhur wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa maalin khamiisa bisha August ay tahay 5 sanadku waa 2021 goor sheegtu waa 2 duhurnimo oo gowa wararkaanu maalinkan maanta idin haynana waxa ugu mudan hay'adaha gargaar ee dawladda Itoobiya shaqada ka joojisay intoodii dawlad deegaanka Soomaalida ku sugnaa oo iyana maanta shaqada wareejiyay Afghanistan oo laga dayrinayo xaalkeeda lana sheegayo inay qaaday dhabadii dagaal sokeeye iyo waliba waxa kale waxa hawshan loo qabtay ba madashan waa in dadka laga jaahil saaro ama si fiican loogu sheego sida ay u shaqeeyaan halkaas waxay ka fahmi karaan ma tahay abkooda shaqo mid waafaqsan sharciga waa magaalada Garowe oo maanta shuruuga furmay bangiyada Islaamiga ee Soomaaliya hay'adda caafimaadka adduunka oo la daalaa-dhacaysa maareynta talaalka ee dalalka hodanka iyo kuwa saboolka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarihiina ka mid yihiin barnaamijku soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan anigoo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiilahayna aan idin la socodsiinayo ee akhyaari ay duhur wanaagsan qodobadaas oo faahfaahsan dhageystayaal weynoo soo socdaan balse marka hore aynu ku horeyno wararka caalamka oo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo maanta diyaar noo leeyahay Cabdiraxmaan mahadsanid Dhimbiil wararka ka imanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya inay socdaan dagaallo xoogan oo u dhaxeeya dawladda Afghanistan iyo ururka Taliban xilli ay Talibaaniyiintu sii wadaan weerarada ay ku qaadeen laba magaalo oo horle mas'uuliyiinta magaalada Herat oo ku taala galbeedka dalkaasi waxay sheegeen dhowr weerar oo Talibaaniyiintu soo qaadeen habeenkii xalay ahaa in la iska caabiyay halka magaalada Laksharga oo koonfurta dalkaasi ku taalan ay qaybo badan magaaladaasi ay maamulaan Talibaaniyiintu hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa laamaha ammaanka Nigeria ku eedeysay 12 qof in ay ku dileen howlgallo ay ku qaadeen koox gooni u goosad oo ka dagaalanta koonfurta bari ee dalkaasi muddo bilooyin ah dawladda Nigeria waxay dadka gobolkaasi asalka u leh ee Biafra ee u soo jeedinayeen eedeymo in ay markaasi weerareen saldhigyo booliis fara badan halka ay ku dileen Amnesty waxay sheegtay in ciidamada ammaanku ay si naxariis la'aan ah u adeegsadeen awood xad dhaafa madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa si weyn u cambaareeyay go'aan maxkamadda sare ee dalkaasi ka soo baxay oo ku aadan in la baaro nidaamka codbixinta ee loo adeegsaday doorashadii 2018 dalkaasi ka dhacday Bolsonaro wuxuu sheegay go'aanka maxkamadda ka soo baxay inuu yahay mid dastuurka dalkaasi baalmarsan balse faahfaahin intaa dhaafsan ma uusan bixin Sam Cowe oo ah wariye fadhigiisu yahay Brazil oo hadalka madaxweyne Bolsonaro ka soo yeeray ka hadlayna waxa uu yiri waxay dhab ahaantii tilmaamayaan guushiisii 2018 halkaas oo ku adkaysanayo inuusan khiyaano darteed ugu guulaysan wareeggii koowaad mana uusan bixin wax caddayna ilaa welise waxa uu haystaa taageerayaal daacad u ah oo ku teedsan xuduudaha dalkan inkasta oo laakiin sumcaddiisii ay hoos uga dhacday intii hore siiba rikoodh ah 24%. laba ka mid ah wargeysyada madaxa bannaan ee ugu caansan Ruushka ayaa dawladda dalkaasi xirtay kadib markii ay dawladdu ku eedeysay in ay sharciga warbaahinta ay ku xadgudbeen labada wargeys ayaa la sheegayaa inay xiriir la leeyihiin maalqabeynta fadhigiisu yahay London Mikhail Khodorkovsky fatraha wargeyska MBK Media Veronica Cotizulo ayaa sheegay in ay wariyaashooda halis aad u weyn ay u wajahayaan isla markaana uu ka cabsi qabo in Ruushka mugdi kale oo dhanka saxaafadda uu galo cilmi baarayaal ku sugan dalka Australia ayaa sheegay inay soo saareen daawo madaxa la mariyo oo ka hortagayso saameynta cudurka neerfaha uu maskaxda u geysto dawadani cusub ee ay cilmi baarayaashu soo saareen waxay ku sheegeen qofka markuu isticmaalo in ay soo noolaanayaan unugyadii uu cudurka dilay cudurka neerfaha ee maskaxda qofka ku dhaca oo afka qalaad lagu yiraahdo Parkinson qofka uu ku dhaco waxaa ka taga awoodda socodka ugu dambeyn ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa sheegay inay duqeymo ka fuliyeen koonfurta dalka Lebanon muddo 7 sano kadib waxay Israa'iil sheegtay duqeynta ay diyaaradaheedu fuliyeen in lagu bartilmaameedsaday xarumo ay sheegeen in ay adeegsadaan kooxaha argagixisada duqeyntaasi ayay Israa'iil jawaab uga dhigaysay gantaalo looga soo riday koonfurta dalka Lebanon warkii idaacadda duhurnimo waa naginta aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo nala socodsiinayay wararka caalamka BBC-da ee dhageystayaal u diyaar garooba idaacadeennii duhurnimo oo faahfaahsan
aynu ku bilownay hay-adihii dhowaan ay dowladda Itoobiya shaqo joojinta ku samaysay qaar ka mid ah oo ka howlgelayay deegaanka Soomaalida ayaa maanta si rasmi ah shaqooyinka ay hayeen ugu wareejiyay maamulka deegaanka. hay-adaha lagu kala magacaabo NRC iyo MSF Holland ayaa ka mid ah hay-adaha shaqo joojintooda maanta la wadaagay maamulka deegaanka. arrintan ayaa daba socota markii dhowaan uu maamulka Abiy ku eedeeyay in qaar ka mid ah hay-adaha samafalka u jooga dalkaas ay faraha kula jiraan howlo aan ahayn kuwii ay u egmanaayeen. Itoobiya ayaa dagaal bila socday kula jirtay fallaagada TPLF, dagaalkaas oo sababay xaalad bini'aadanimo oo daran iyo macaluul laga soo sheegayo deegaanka Tigreega, taasoo keentay gargaar samafaleed oo lagu baaqayo in dalkaas la gaarsiiyo. xogtii u dambeysay waxaynu ahaayay wariye Ismaaciil Burgaabo oo Jigjiga ku sugan. cabdiraxmaan oo go'aankii dowladda Itoobiya ka soo baxay ee shaqada ay kaga joojisay saddexdii urur ee ka shaqeynaya howlaha gargaarka bini'aadantinimo ee kala ahaa hay-adda qaxootiga Norway NRC iyo hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee Holland MSF Holland iyo hay-adda Al-Maktuba oo Imaaraati ah ayaa waxa deegaanka ay saameeyeen labada hay-adood ee kala ah NRC iyo MSF Holland waxayna maanta nuqullo wargelina oo shaqo joojintooda ku aadan ay soo gaarsiiyeen xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida sida uu xaqiijiyay Sadiq Cabdulqaadir khaliif oo ah wasiir ku-xigeenka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka oo hay-adaha xiriirkooda maamulka deegaanka u qaabilsan. taariikhdu markay ahayd 30 Juulaay 2021 waxay hay-adda u qaabilsan sharcisiinta hay-adaha ka howlgala dalkeena Itoobiya warqad wareegtay ay soo saartay ay ku xuseen in saddex hay-adood oo laba ka mid tahay deegaankeena ka howlgalayeen shaqooyinkii laga joojiyay iyo dhaqdhaqaaqii ay ka wadeen dalka Itoobiya suspension laga geliyay hakadkaasi muddo 3 bilood u soconaya. waxaa ka mid ah hay-adda NRC iyo hay-adda MSF Holland. NRC waxay ka howlgalaysay deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga iyo Doolocado ayagoo mashaariic kala duwan ka waday gobolada Qorraxay City, Erar, Faafan iyo Liban. gaar ahaan hay-addan waxay ka shaqeynaysay qaybta waxbarashada, qaybta biyaha, qaybta sharciyaadka iyo sidoo kale mashaariicda livelihoodska ama mataqaanaa la yiraahdo dhaqaalaha iyo cunnada iyo waxa la xiriiro. sidoo kale hay-adda MSF Holland waxay ka shaqeynaysay gobolka Doolo oo mashaariic aad muhiim ah oo xaqiiqi caafimaad ay ka waday. mashaariicda kala duwan ay waday muddo dheer bay soo waday. hadda waxay gacanta ku haysay mashaariic outreach oo ay gaaraysay bulshada reer guuraaga ee degmooyinka Wardheer, Galaadi, Danood iyo Booq ee gobolka Doolo. hay-adahaasi hadda si guud xafiisadoodii waa la xiray, wax shaqeeyna ma wadaan. hadduu aleedmana partnerska ay la shaqeynayeen sida ku cad maqaalka ka soo baxay hay-addan sharciyeynta dalka waxaa maaragtay ku cad inay ku wareejin doonaan mashaariicda ay wadeen xafiisyada dowladda ay la shaqeynayeen bahwadaagtee. labadan hay-adood oo mashaariic kala duwan waday saameyntooda waa la dareemi karaa inkastoo hay-adda MSF Holland hay-ad ka howlgalaysay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Doolo tan iyo 2008 ay tahay hay-adda sida weyn ay u tabi doonaan shacabka ku dhaqan gobolka Doolo ee dowladda deegaanka Soomaalida. hay-addan waxa ay ka howlgalaysay oo wax ka qabanaysay dhanka caafimaadka iyadoo taageero lixaad markaas siin jirtay xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada. waxaa sidoo kale adeegyada ay bixin jirtay kamid ahaa adeegyada caafimaadka wareega sida ay sheegeen qaar kamid ah shacabka ku dhaqan gobolkaasi Doolo. waxa ay ahayd hay-addan mid soo garab taagneed shacabka gobolkaasi ku dhaqan xilliyo ay adkayd in shaqaalaha gargaarka ay ka shaqeeyaan deegaanka Soomaalida colaado jiray xilligaasi awgood. cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa wariye Ismaaciil Burgaabo oo Jigjiga ku sugnaa. bal haddii aynu eegno qodobka waxay ka yidhaahdeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo aragtidooda noo soo mariyey bartaanu ku leenahay Facebooka. dhegeysta lagu magacaabo Cabdilaahi Jaamac Oogle oo Burco jooga wuxuu yidhi hay-adaha gargaarka ee dowladda Itoobiya ka joojisay howlaha bini'aadantinimo ee gobolka Tigray ee maanta intoodii dowlad deegaanka Soomaalida ku sugnaana shaqada laga joojiyey waa xaalad kale oo ay wajahayaan dadka u baahan gargaarka bini'aadanimo ee ku tabaalaysan buu yidhi dalka Itoobiya waana mid sii adkeynaysa xaalka Itoobiya. waanan ka xumahay buu yidhi dhegeystahaasi shaqada laga joojiyey hay-adahaas. dhegeysto kale oo ka aragti duwan oo lagu magacaabo Cabdicasiis Cabdilaahi Daahir waa balad xawo jooga wuxuu yidhi hay-adaha Itoobiya ay ka joojisay ka howlgelida dhulka waa arrin ay xaq u leedahay Itoobiya. hay-aduhuna haddii ay dhibaato iyo qalaaso sii abuurayaan waa in laga saaro ama dhaqdhaqaaqooda la joojiyo. dalkana waa arrin wanaagsan, markaa waa inayna sharciyada ka boodin hay-adaha gargaarku ee ay ku koobnaadaan gargaarka, ayuu yidhi dhegeystahaasi. kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo aragtidooda noo soo mariyey bartaanu ku leenahay Facebooka. haatanna dhanka iyo Afghanistan. saraakiisha Afghanistan ayaa sheegaya in ciidamada ammaanku ay iska caabiyeen weerar cusub oo ay Taliban ku soo qaadeen magaalada Herat ee gobol ee galbeedka dalkaasi. waxay sheegeen in Taliban ay dhowr weerar oo habeenimo ay ku qaaday baraha kontaroolada ee duleedka magaalada.
taliye booliis iyo 2 ka mid ah ilaaladiisa ayaa ku dhintay dagaalkaas. magaalada Lashkargah ee xarunta gobolka Helmand ayay militarigu sheegeen inay ka bilaabeen howlgal wada jir ah oo Taliban lagaga sifeynayo magaaladaas. isku horimaadyo xoogan ayaa in badan toddobaadyadii la soo dhaafay ka socday gobolka Lakshar oo ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Taliban oo ka dagaalamaya meel u dhow xarumaha muhiimka ah ee dawladda. ma jirto wax jawaab ah oo degdeg ah oo ka soo baxay kooxaha Taliban ee ku saabsan sheegashadii ugu dambeysay ee dawladdu sheegtay halka ay wax marinayso. General David Petraeus oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada Mareykanka ee Afghanistan intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2011 ayaa BBC-da u sheegay in dalku uu muuqdo inuu ku jiro marxaladihii hore ee dagaal sokeeye oo hadda uu si buuxda u bilowday, isagoo sharaxay cawaaqibka ka dhalan kara guusha ay Taliban ku sii suqayso inay gaadho. Certainly there will be hundreds of thousands if not millions of refugees. dhab ahaantii waxaa dhici doonta in boqolaal kun ama xitaa malaayiin qof oo qaxooti ah ay ku soo jabaan dalal aan u diyaarsanayn sida Pakistan oo kale. taasi ayaa horseedi doonta in Al-Qaacida ay xarumo ka samaysato gudaha Afghanistan. ma dhici doonto in marka hore uu ururkaasi beegsado Mareykanka iyo xulafada NATO, balse mustaqbalka ayuu isku dayi doonaa. waxaa sidoo kale dhici karta in ururka IS uu xarumo isna ka samaysto gudaha dalkaasi. We could see the Islamic State establishing a sanctuary there as well. mudane David Petraeus waxa uu hadalkiisa sii raaciyay inuu aad uga walaacsan yahay xaalka Afghanistan ku sugan tahay. David Petraeus waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidamada Mareykanka ee Afghanistan intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2011. My worst fear since the beginning has been that Afghanistan would descend into a full-fledged civil war. cabsida aan qabay tan iyo markii uu bilowday dagaalka ayaa ah in Afghanistan ay gasho dagaal sokeeye, gaar ahaan mid la mid ah kii dalkaasi ka dhacay 90meeyadii, markaasi oo ay burburtay xukuumaddii uu taageerayay midowgii Soviet. waxaa muuqata in hadda aan ku jirno xaalado bilow ah oo horseedi kara colaad noocaas ah, balse waxaa jira tallaabooyin looga hortagi karo in dalkaasi uu lagu hala galo colaad sokeeye. waxaana kow ka ah in Mareykanka uu si buuxda u taageero ciidamada cirka ee Afghanistan, gaar ahaan dhanka dayactirka iyo qalabaynta diyaaradaha dagaalka. That is planes and helicopters are maintained. kaasi waxa uu ahaa General David Petraeus taliyihii hore ciidamada Afghanistan ee Mareykanka. weli dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa BBC xilli bariga Afrika ay goor sheegto hadda tahay 2:12 daqiiqo. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland waxaa ka furmay shir u dhaxeeya bangiyada Islaamiga ah ee ku yaala Soomaaliya. shirkan oo ku saabsan sidii ay uga tashan lahaayeen ayaha bangiyadan dadkana loo fahansiin lahaa habka ay u shaqeeyaan iyadoo loo marayo fidinta adeegyada ay bixiyaan. dadka Soomaalida ee u badan reer guuraaga aad uma isticmaalaan bangiyada iyagoo weli ku xidhan hababkii hore ee kaydinta ahaa, halka ayba iska kooban tahay adeegyada ay bixiyaan bangiyada ka jira Soomaaliya. Maxamed Cabdiweli Abshir Budeeye waxa uu ka mid yahay abaabulayaasha madashan, waxa la kulmay oo uu waramay wariye Axmed Cawil Jaamac. madashan maantay aan qabanay ama halkan ka dhacday waa madasha bangiyada Islaamiga ah ee Soomaaliya. madashan waxaa soo agaasimay bangiga Salaam. dhammaan bangiyada dalka ka shaqeeyana waa ay ka soo qayb galeen. ujeedadoodu 2 arimood ayay ahayd. ujeedada koowaad waa in dadka iyo bulshaweynta la baro habka bangiyadu ay u shaqeeyaan. ujeedada labaad waxay ahayd in bangiyadu isqiimeeyaan oo hadba wax la yiraahdo sida ay ku shaqeynayaan isweydiiyaan ma tahay mid duruufta iyo maaragtay waaqica dalka ka jira ama bulshada ka dhex jira mid la jaan qaadi kara. dadkan ka soo qayb galay madad goboleedan Puntland kaliya ka yimid ama sameelo kale oo ay ka yimaadeen baa jira. dadka soo qayb galay waxay ka yimaadeen dalka gudihiisa sida wax la yiraahdo Hargeysa, Muqdisho, bay iska yimaadeen dalka dibadiisa sida Djibouti iyo Bahrain. dad ka yimidna way ku jiraan oo dadka jeediyaasha ah oo wax jeedinaya kamid ah aqoon-yahanka ah. labadaas dhinac oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa ah. waa gartay marka bangiyada Islaamiga marka tiraahdo waxa soo dhacaya bangiyo ka baxsan kuwa Soomaalida, marka ma jiraan kuwaas oo sida Carabaha iyo inay yimaadeen. bangiyada hadda halkan madashan ku midoobay ama shirkooda uga socdo waa madasha bangiyada Soomaaliyeed wey. dadka kale oo aan ku sheegay oo dad kaabaya aqoon-yahano ah oo bulshada baray sida bangiyada u shaqeeyaan. ujeedada laga leeyahayna waa in dalka bangiyadoodu ay isqiimeeyaan. ugu dambeyn waxa ka soo bixi doona warmurtiyeed la xiriira waxa weeye shirkaas oo
dadka danayaasha kala duwanna ee ku socda sida dawladda wax la yiraahdo bulshada laftigeeda bangiyada dadka haysa laftigooda urmurtid noocaas ayaa laga soo saari doonaa markuu shirku dhamaado waaya marka inta badan bangiyada maalgashi bay sameeyaan waxaana dhici karta dadka qaybtii inay aaminsan yihiin qaabka ay maalgelinta u sameysay wuxuu ribaa inay ku jirto marka taasoo kale diiradda ma la saari doonaa way jirtaa dad badan oo maaragtay shaki ka qaba madasha bangiyadu say u shaqeeyaan waxa hawshan loo qabtayba madashan waa in dadka laga jaahil saaro ama si fiican loogu sheego sida ay u shaqeeyaan halkaas waxay ka fahmi karaan ma tahay abkooda shaqo mid waafaqsan sharciga mise midan waafaqsan markaas ay fahmi karaan marka madashan waa shaki saarid iyo dadka in loo sheego horta inay fahmaan qaabka u shaqeeyaan marka dad aaminsan way jiraan laakiin dalkan bangiyada ka shaqeeya oo dhan waa bangiyo islaami ah waa garta laakiin wuxuu waajiri karaa soo maaha maya xagga shareecada waxa la yiraahdo waa laga yaabaa waxyaabo si sax ah aan loo dhigay inay jiri karaan oo bangiyada markaas errors ka dhaca laakiin bangiyada oo dhan waxa asaas u ah oo ay ku dhisan yihiin waxa weeye shareecada dhamaantood saasa wax ugu qoran waxa la yiraahdo heshiisyada lagu aasaasay marka nidaam noocaas ku wada shaqeyn islaami ah xilliyada qaarkood bangiyada laftigooda waxaa lagu eedeeyaa markii qof maalgashi uu rabo inay u fududeeyaan keliya dadka ladan oo aysan dadkii danyarta ahaa iyo aan hoos laga soo dhisin oo ay ku adkeeyaan shuruudaha qaarkood marka arrimahaasoo kale maxaa ka leedihin way jiraan waa dhaliilaha hadda la rabo in xalka loo raadsho yacni systemka bangiyadu ay u maalgelinayaan dadka ma yihiin system dadka oo dhan ay ka soo wada bixi karaan oo shuruud dadka oo dhan maaragtay gaadh ah xataa haddii aan la helin taas waa in bangiyadu ay ku talagalaan waxa weeye dadka levelka hoose ama bulshada qeybaheeda jilicsan waxyaabo maalgelin ama systemyo microfinance wax la midka ah inay ku talagalaan kolle warmartiyeedka ku jiri doontaa talooyinka iyo waxyaabaha loo soo jeediyo laakiin waxaan rabnaa bulshada oo dhan bangiyadu inay ka wada faa'iidaystaan farintaas ayuu daaran yahay shirku in loo diro bangiyada hadda shirkan ima soo socdno ilaahay idankiis laba beri uu socon doonaa shirkan akhiiranna waxa weeye waa la soo gabagabeyn doonaa afarta gelin labadaas beri waa socon doonaa waa doodo madaxda ay doodi doonaan iyo lectures iyo cashare la jeedin doono ayuu isugu jiraa ilaahay idankiis kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiweli abshir oo warramayay wariye axmed cawil jaamac haatanna hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa ku baaqday in la hakiyo tallaalada xoojinta ee cudurka COVID-19 ilaa ugu yaraan dhammaadka bisha Sebtembar. Madaxa WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa sheegay in hakintaasi ay sahli doonto in la tallaalo ugu yaraan 10% dadka dal walba. Ma ahan markii ugu horreysay ee baaqani ka soo baxo. Faahfaahinta warkaas waxay noo haysaa Faadmo Macnabo. tiro dalal ah oo ay ku jiraan Israa'iil iyo Jarmalka ayaa ku dhawaaqay qorshooyin ay ku dalbanayaan kuurada saddexaad ee talaalka balse Dr. Tedros ayaa ka digay intaasi ay saameyn weyn ku yeelanayso dalalka saboolka ah sida ay qabto WHO dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa waxa ay kaliya awoodeen in 1.5 xirmo talaalka ay u keenaan boqolkii qofba. Dr. Tedros ayaa sheegay in loo baahan yahay isbedel islamarkaana inta badan talaalka la geeyo dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo. Wuxuu sheegay inuu garwaaqsan yahay walaaca dowladaha ay ku aadan in dadkooda ay ka difaacaan fayraska nooca Delta balse aysan aqbali karin in dalalka hore u isticmaala inta badan talaalkii dunida loogu talagalay inay haddana isla intaas in ka sii badan ay isticmaalaan. waa baaq xoogan oo ka yimid WHO iyadoo ay hay-addu isku dayayso inay wax ka qabato farqiga u dhexeeya dalalka qaniga ah iyo kuwa saboolka ah. waxay ka digteen 10% dadka dal walba la doonaya in la tallaalo wixii loo gaaro bisha soo socota aysan suuragal noqon doonin. dalalka Haiti iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo midkoodna dadkoodu ma uusan helin 2 kuuro oo talaalka ah. Indonesia oo kiisaska xanuunka iyo dhimashaduba ay sare u kaceen bilihii la soo dhaafay sabab la xiriira fayraska nooca Delta ayaa kaliya si buuxda u talaalay 7.9% ka mid ah bulshadiisa. dhanka kale Israa'iil ayaa bilowday in talaal xoojin ah ay siiso dadka ay da'doodu ka koreyso 60 halka Jarmalka uu shalay ku dhawaaqay in uu bilaabi doono inay bixiyaan kuurada saddexaad ee talaalka Moderna iyo Pfizer. dalka UK-na malaayiin qof oo loo arkay inay xanuunka u nugul yihiin ayaa talaal xoojin ah la siin doonaa laga bilaabo bisha Sebtembar ee sanadkan. Mareykanku kuma uusan dhawaaqin siyaasadda xoojinta talaalka balse aqalka cad ayaa sheegay inay hayaan xirmooyinka talaalka oo ku filan in dibadda loo dhoofiyo iyadoo isla markaana la hubinayo in dadka Ameerikaanka si buuxda loo talaalay.
aad bay u mahadsan tahay faadumo macalin abuukar oo warbixintaasina la socodsiinaysay haatana dhegeystayaal haddii aynu eegno dhanka ciyaaraha weli waxaa socda suuqa kala iibsiga ciyaartoyda chelsea waxay ku dhowdhowdahay inay gadato ciyaaryahankii romelu lukaku oo ay rabto inay dib u keento garoonka stamford bridge qiimaha ay ku doonaysaa waa lacag qaaliya 110 milyan sidoo kale kooxda manchester city waxay la wareegtay kabtankii iyo laacibkii aston villa inkastoo weli heshiisku aanu dhammaystirmin haddana sida muuqata ja grilish xil ciyaareedka dambe waxa uu ka ciyaari doonaa garoonka manchester city iyo tababare Pep Guardiola iyo Kevin De Bruyne dhegeystayaal haatanna baafintii baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tebinaya anigoo ah Faysal Bishaar Aligo iyo Caaisha Saciid Xasan Caash mahadsanid Aligo baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Safiya Xaaji oo joogto xuldur waxay baafinaysaa Cabdulaahi Xaaji waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2008 haddaba haddii uu maqlayo Cabdulaahi Xaaji ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Safiya Xaaji iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xundur basra geyre mire oo joogta Kenya waxay baafinaysaa Yaasir Aways Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jowhar sanadkii 2013 haddaba haddii uu maqlayo Yaasir Aways Axmed ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo basra geyre mire iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Nairobi Xaawo Cumar Aadan oo joogto xundur waxay baafinaysaa Cabdirasaaq Cumar waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2009 haddaba haddii uu maqlayo Cabdirasaaq Cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xaawo Cumar iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xundur Sacdiye Cabdiqaadir Xaashi oo joogta Kakuma waxay baafinaysaa Maryan Cabdullaahi Jeylaani waxa ugu wardambeysay sanadkii 1993 iyadoo ku sugan Kismaayo haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Cabdullaahi Jeylaani ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Sacdiye Cabdiqaadir Xaashi iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kakuma Maryan Cabdulle oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Mustafa Axmed iyo Cabdilla Nuur waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Suudaan 2016 haddaba haddii ayna maqlayaan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Maryan Cabdulle iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Amiin Geedow Axmed oo jooga Cadale waxa uu baafinayaa Yuusuf Geedow Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sweden sanadkii 2013 haddaba haddii uu maqlayo Yuusuf Geedow Axmed ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Amiin Geedow Axmed iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar Saare Aadan Jaamac oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Samiiro Aadan iyo Jimcaale Aadan waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan France 2015 haddaba haddii ay maqlayaan Samiiro iyo Jimcaale ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Saare Aadan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Salmo Muumin Cali oo joogta Cadale waxay baafinaysaa Fartuun Muumin Cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen sanadkii 2012 haddaba haddii ayna maqlayso Fartuun Muumin Cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Salmo Muumin Cali iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar Aadan Cali Gooni oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Nuur Cali Gooni waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itaaliya 2015 haddaba haddii uu maqlayo Nuur Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aadan Cali iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Xabiibo Macalin Nuur oo joogta Waajid waxay baafinaysaa Faadumo Macalin Nuur waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Sacuudiga sanadkii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso Faadumo Macalin Nuur ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xabiibo Macalin Nuur iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Xudur Sacdiye Cumar oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Shariifo Maxamed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Angola 2013 haddaba haddii ayna maqlayso Shariifo ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Sacdiye Cumar iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Awliyo Isaaq Ibrahim oo joogo Xudur waxa uu baafinayaa Nuno Isaaq Ibrahim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadkii 2004 haddaba haddii uu maqlayo Nuno Isaaq Ibrahim ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Awliyo Isaaq Ibrahim iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Xudur
yaasiin xuseen oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa saciid xuseen iyo samatar xuseen waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan romania 2015 haddaba haddii ayna maqlayaan saciid iyo samatar amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo yaasiin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. xaawo maxamed yarow oo joogta waajid waxay baafinaysaa mishaama maxamed yarow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yaman sanadkii 2006 haddaba haddii ayna maqlaysa mishaama maxamed yarow ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xaawo maxamed yarow iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. muxubo aadan oo joogto baardheere waxay baafinaysaa cali aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan marooka 2016 haddaba haddii uuna maqlayo cali aadan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo muxubo aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. dahabo xaaji xasan oo joogto xudur waxay baafinaysaa nuurto xaaji xasan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga sanadkii 2004 haddaba haddii ayna maqlayso nuurto xaaji xasan amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyey dahabo xaaji xasan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. sareedo cumar cali oo joogto baardheer waxay baafinaysaa markabo cali fiidow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan fiinland 2016 haddaba haddii ayna maqlayso markabo cali fiidow amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sareedo cumar cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. xasan ibraahim oo jooga xudur waxa uu baafinayaa cadaawe ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya sanadkii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo cadaawe ibraahim ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xasan ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. samiixo cabdi nuux oo joogto baardheer waxay baafinaysaa ashkir maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan zimbabwe 2016 haddaba haddii uuna maqlayo ashkir maxamed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo samiixo cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. maryan isaaq mursal oo joogto waajid waxay baafinaysaa dahabo isaaq mursal waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan kenya sanadkii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso dahabo isaaq mursal amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maryan isaaq mursal iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. faadumo cabdi oo joogto baardheer waxay baafinaysaa cabdiqaadir maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan maali 2015 haddaba haddii uuna maqlayo cabdiqaadir maxamed amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. maxamed cali deerow oo jooga waajid waxa uu baafinayaa dhaayow cali deerow waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mandheera sanadkii 2003 haddaba haddii uuna maqlayo dhaayow cali deerow amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey maxamed cali deerow iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. isniina maalin oo joogto baardheer waxay baafinaysaa aadan maalin faarax waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan niger 2013 haddaba haddii uuna maqlayo aadan maalin amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyey isniina maalin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ruqiyo salaad ibraahim oo joogto waajid waxay baafinaysaa maryan salaad ibraahim waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan goday Ethiopia sanadkii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso maryan salaad ibraahim ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ruqiyo salaad ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. ifraax cabdi nuur oo joogto baardheer waxay baafinaysaa farxiyo nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Denmark 2015 haddaba haddii ayna maqlayso farxiyo nuur amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo ifraax cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. maslaxo macalin cali oo joogta waajid waxay baafinaysaa deeraan macalin cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan mandheera sanadkii 2006 haddaba haddii ayna maqlayso deeraan macalin cali amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maslaxa macalin cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. cabdi aadan yaasiin oo jooga baardheer waxa uu baafinaya aadan yaasiin faarax waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mongolia 2014 haddaba haddii uuna maqlayo aadan yaasiin amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdi aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. cabdiraxmaan cabdiyey cabdiraxmaan oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa maxamed cabdiraxmaan cabdiyey waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan beledweyne sanadkii 2017 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdiraxmaan cabdiyey amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdiraxmaan cabdiyey cabdiraxmaan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. nuurto cabdow ibraahim oo joogto baardheer waxay baafinaysaa
mishaamo cabdow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga 2008 haddaba haddii ayna maqlayso mishaamo amaba jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nuurta cabdow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay niishaay maxamed cadow oo joogta xudur waxay baafinaysaa saare maxamed cadow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan cadan yaman sanadkii 2005 haddaba haddii ayna maqlayso saare maxamed cadow amaba jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo niishaay maxamed cadow iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. baafintiina maanta waa naginta dhegeystayaal idaacaddeenii duhurnimana waa naga intaa tan iyo intaaynu dib u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa maalintu ha idiin samaato.